waxaa jira laba doorasho ama laba ikhtiyaar inaad doorato inaad horumar samaysato ama inaad doorato inaad marmarsiyo samayso. Cudurdaarku ama marmarsiyaha hadba waa sidaad u taqaanide waa waxyaabo awood badan. Hal cudurdaar aad samayso ayaa kaa xanibi kara ama kaa burburin kara 100 fursadood aad heli lahayd. Cudurdaarku waa aalad, waa qalab ay isticmaalaan kuwa daciifka ah oo aan karti iyo khibrad badan lahayn, iyagoo u isticmaalaya inay ku dhistaan buundooyin xusuus ah sida ma aanan helin yaraanteeni caruurnimo fiican, ma aanan helin waxbarasho igu filan, waddanka aan joogo waa cunsuriyiin, waddanka shaqo ma leh, guurkaygii ayaan ku fashilmay. Kumanaan cudurdaar oo isku mid ah ayay leeyihiin. Dadka noocaas ah waa dhif inay sameeyaan waxaan cudurdaar ahayn. Waxaan leenahay oo Allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey awood iyo karti ka badan waxqabadkeena itaalkeedna, laakiin badanaa marmarsiyaha iyo cudurdaarkan u samaynayno nafteena ayaa inoo sawiraya in arrimuhu aysan ahayn kuwa suurtagal ah, inaysan ahayn arrimaha kuwa macquul ah, inaysan ahayn waxaan la samayn karin. Qofka keliya ee sida dhabta ah dib kuugu dhigaya oo horumarka kaa hor istaagan waa adiga naftaada, ma aha cid kale, ma aha qof kale. Marmarsiyo dambe ma jirto. Waa waqtigii aad nolosha ku noolaan lahayd isbeddel cusub, waa waqtigii aad samayn lahayd wax adiga ku wanaagsan, wax adduun iyo aakhira ku anfacaya. 99% guuldarrooyinka waxay ka yimaadaan dadka u leh caadooyinka inay sameeyaan marmarsiyo. Intii aad samayn lahayd marmarsiyo ama cudurdaar, ficil qaad, u howlgal, u shaqogal waxa aad jeceshahay, waxa kaa dhex guuxaya, waxa aad rabtid, isbeddelka aad rabtid inaad la timaadid, ficil u qaad. Waad la yaabi doontaa horumarka joogtada ah aad gaarayso iyo wixii mustaxiilka iyo waxa adag kula muuqday inay noqdaan wax fudud oo aad u aragtid wax ka mida nolol maalmeedkaaga. Mar walba marmarsiyaha noloshaada kama weynayso oo waad helaysaa inaad wax markay kuu hirgeli weydo inaad cudurdaar u samayso, laakiin waxaad ogaataa fursadaha iyo fursadda ku soo marta inaysan kuu joogayn, aysan kuu fadhiyaynin, ay ku dhaafayso. Haddii aad rabto inaad wax qabato waad heli doontaa oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waddo kuu furaya oo Ilaahay baryadiisa iyo joogtayntaada ayuu Allah kugu saacidaya. Haddiise aadan isku dayin oo aad mar walba isku dayaysid inaad marmarsiyo un la joogtid, waxaad heli doontaa mar walba marmarsiyaha dhinacyada iyo meel walba ayuu kaaga soo bixi doonaa. Guul iyo cudurdaar ma wada hadlaan, isku meel ma yimaadaan, qaamuuska ma wada tirsanaa. Haddii aad cudurdaar samaynayso iska ilow inaad guul gaarto, haddiise aad guul rabto ha samaynin cudurdaar. Nolosha 10% waa waxa kugu dhaca ama waxaan la kulanno, laakiin 90% kale waa sida aan uga falcelino wixii nagu dhacay. Jooji inaad cudurdaar u samayso sababta aad u samayn weyday waxa aad cudurdaarka u samaynayso. Samee un, laakiin markii aad barato inaad la noolaato joogtadaada ama xaaladan xaadirka ah oo presentiga ah aadna diiradda saarto waxa daqiiqadaas iyo minitaas dhacaya, waxaad awood u yeelanaysaa inaad ficil qaado. Waxaa la yiri oo waxaa jirta oraah tiraahda haddii dadku ay u isticmaali lahaayeen awoodooda iyo tamar badanna ay gelin lahaayeen, yacni energy badan ay gelin lahaayeen sidii ay himiladooda u gaari lahaayeen inta ay ku bixinayaan cudurdaarka guuldarrooyinkooda, runtii waxay la yaabi lahaayeen naftooda. Calashaan intii ay dadku energy badan ku bixin lahaayeen inay guuldarro iyo wixii ku dhacay noloshooda dhan marba yacni marmarsiyo iyo cudurdaaryo kala duwan u samaynayaan, hadday himiladooda iyo noloshooda ay kor ugu qaadi lahaayeen, enerjigooda gelin lahaayeen, waxay xaqiijin lahaayeen guulooyin waaweyn sida dad inaga mida ay u wada gaareen oo u xaqiijiyeen. Ka guulayso naftaada oo yaysan kugu xiran meel cidla ah.